raashin inta la isku tiiriyo la seexanayo oo farqi wuxuu ugu dhaxeeyaa dadkii hore waxay ahaan jireen kuwo wax yar cuno ma caafimaad ka heli doontaa mise jirro bismillaahir rahmaanir rahiim السلام عليكم والاليال soo dhawaada aad baad u mahadsantihiin sida wacan aad noola socotaan waxaan jeclahay like inaad badisaan isbuuci hore ma sha Allah aad u fiicneed like-tiina like-ta aad ugu dadaal insha Allah sidad badan oo cusub oo aad u danaynaa caafimaadka aan u gaarno like aad u badiyo insha Allah si qaaladeena u soo gaaraysa dhaqso leh waxaan rajaynayaa intaan ciwaanka ugu garin inaad like saari doontid muuqaalka waxaan rajaynayaa sidoo kale inaad ugu soo biiri doonto haddii nagu cusub tahay waxaan rajaynayaa in maaragtay aad ka faa'iideysan doontaan mowduuc aad u qiimo badan maanta ciwaanka aan ka hadli doono wuxuu doonaa ramadaanka oo dhacyar oo ku saabsan caafimaadka iyo ramadaanka wax ka quseeyo maadaama aan nahay kanaal ka hadla caafimaadka waxaan jecelnahay in aan uga hadalno dhanka caafimaadka ramadaanka sidaan ognahayba waa bil ilaahay ugu talagalay in la cibaadeysto cuntadana la yareeyo guud ahaan ha u fahmin inay tahay bil habeenkii wax la cuno maalintii la soomo ha u fahantaa bil nashaadka la badiyo iyo activity exercise la badiyo raashinkana la joojiyo sida u faham wardaahan marka waxaan leenahay soonka sida hadda anaga aan ka aaminsanahay sidii hore farqi u dhaxeeyo oo farqi wuxuu ugu dhaxeeyaa dadkii hore waxay ahaan jireen kuwo wax yar cuno soonka afurkan wax yar cuni jireen suxuurtana wax yar raashin inta la isku tiiriyo la seexanayo ama game la dheelaa ma jiri jirin balse hadartaan waxaa jiro inta raashin la isku tiiriyo maqribkii suxuurta la isku tiiriyo casha ku dheer tahay waayahay ramadaankaaga soo noqon doona caafimaadkaaga soo noqonaya ma caafimaad ka heli doontaa mise jirro waxa xaqiiq ah ramadaanka waa sida loogu talagalay waagii hore ramadaanka waxaa loogu talagalay in qofku uu cuno raashin yar oo kooban markii uu afurayo raashin yar oo kooban markii uu suxuuranayo waxaa fiican qofku inuu saas u fahmo mid kale waa in qofku xoog oo saaraa cibaadaadkii iyo activity maxay leeyahay salaada la iska rabaa taraawiix tahajjud waxa soo dhan macnaa waa activities fara badan quraan akhris activities kaas faraha badan leh energy aad bixinaysid jirkaaga ka baxaya caafimaadaan ku helaysaa laakiin haddii sida hadda anaga u fikirayna aan sameeyno raashin badan la cuno la seexdo la soo kaco qaybtii yar oo ka dhiman sheeg maalintiina game la dheelo ama baashaal iyo wax lagu dhumiyo ma ahan macnaa caafimaad lagu helayo caafimaadka ilaahay ugu talagalay in bisha ramadaan dadka ay helaan waa ramadaankii dadkii xilliga nabiga joogay sallallahu alayhi wasallam qaabkay u soo jireen qaabkaas ayaa waxa lagu helaa caafimaadka maxay ku kala duwan yihiin farqiga kii hore iyo kan hadda arrinkaas waxaan uga hadli doonaa muuqaalka soo socda insha Allah waad mahadsantahay ciwaankan iyo ciwaanna kale oo aad u muhiimsan waxaan uga hadli doonaa qaybaha soo socda insha Allah wuxuu noqon doonaa muuqaal taxana ah oo aan ugu talagalnay caafimaadka ramadaanka fadlan ugu soo biir haddii aad nagu cusub tahay haddii aad hore nool joogtayna gaarsii saaxiibadaada kale waad ku mahadsan tahay nool joogitaankaaga iyo la socoshada muuqaalka aad iyo aad baad mar kale kaaga mahadcelinaynaa sida wacan ee aad ula soo socotay muuqaalka mahadsanid